السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalaha igu xiran aad iyo aad ayaan idin salaamaya ma sha Allah tabaaraka Allah maanta maxaan idin wadaa walaalahay muddo ismoognayn little bit busy mataqaanaa mashquulka ayaa iska badnaa dhamaantiin soo dhawaada codsi walaalo badan ka imaaday aawadood ma sha Allah tabaaraka Allah mar walba waxaan jeclahay codsiyadiina in aan mataqaanaa aan hirgeliyo laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqtiga hanoo barakeeyo maanta marka walaalahay waxaan rabaa in aan idin kala hadlo collagenka horeyaan mataqaanaa idinkula soo wadaagay waxyaabaha caafimaadkaaga iyo quruxdaada labadaba kor ugu qaadi karto ma sha Allah tabaaraka Allah oo dabiici ah marnaba lagama yaabano in aad janaalka maamulna kala kulantaan kiimika marso iyo isku cadee something like that subhanallah laakiin waxaan jeclahay inaan idin la wadaago waxyaabaha caafimaadkaaga ama shiningkaaga quruxdaada caafimaad ahaan ku soo saari kara ku soo celin kara midabkaaga ka dhigi kara ma sha Allah tabaaraka Allah maxaa kamid ah collagen-ta hore ayaan mataqaanaa waa isticmaalay aniga hore ayaan idin la wadaagay haddana haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waxaan idin la wadaagayaa collagen-ta oo mataqaanaa ma sha Allah tabaaraka Allah iyadoo laga soo dhigay candy camal iyadoo laga soo dhigay ma sha Allah marka maxaan u jeclaaday inaan idin la wadaago mar walba waxaan jeclahay waxa aan nafteyda la jeclahay inaan walaalahay Soomaaliyeed inaan idin la jeclaado ma sha Allah tabaaraka Allah haddaba marka aad qaadatid si fudud haddii aad tahay walaalaha reer North America oo go ku jiro go waxaan ka wadaa walaalaha mar walba mataqaanaa ordaya shaqada waxa la dhahaa guriga hooyo Soomaaliyeed waa iska mashquulsan tahay ma sha Allah tabaaraka Allah waa is ognahay aad iyo aad ku anfacaya marka baakadkaas soo qaado marka soo qaadatid gaarigaaga meel kamid ah mataqaanaa dhigo ma sha Allah tabaaraka Allah marka aad si drive gareynayso halkaaga xabo ama labadaada xabo ma sha Allah tabaaraka Allah maalinkii ka qaado aad iyo aad ayuuna ku anfici doonaa qiimo aad iyo aad mataqaanaa ku eriyayna ma joogo aad iyo aad mataqaanaa raqiis uu iskaga yahay walaalaha reer North America Canada reer Europe intaba mataqaanaa ma sha Allah tabaaraka Allah also Africa in laga helo waa dhici kartaa laakiin I'm not sure marka ma sha Allah tabaaraka Allah qaado xagee ka helaysaa organic storeska ayaa ka helaysaa ma sha Allah tabaaraka Allah ama waxa ka helaysaa GNC da aad iyo aad uga helaysaa marka waxa arkaysaa day by day inuu skinka wajigaaga ma sha Allah tabaaraka Allah wax alaal iyo wixii u baahnaa uu helayo oo ma sha Allah tabaaraka Allah vitamins badan ku jiro horaan ooga soo hadlay ee kamid tahay vitamin K ee kamid tahay vitamin E ee kamid tahay oo fara badan oo marka waxa ku jiro ma sha Allah tabaaraka Allah jirkaaga nuurinaya marka skinkaaga waxa uu u baahan yahay marka uu helo sida geedaha waxay u baahan yihiin biyo iyo qorrax ay u baahan yihiin markaas way baxaan flower ay soo tuuraan soo maaha adigana marka wajigaaga wuxuu soo tuurayaa midabkaagii originalka ahaa ma sha Allah tabaaraka Allah ayuu soo tuurayaa oo mataqaanaa midabkaagii deeha oo midabkaaga ayuu mataqaanaa soo celinaya ma sha Allah tabaaraka Allah also waxa kale oo iyadana mataqaanaa dhinaca kale idin saaran oo aan idin la soo wadaagay codsiyo badan maadaama ay yaaleen baakadka kale meesha noo saaran iyadana ma sha Allah tabaaraka Allah GNC da laftirkeeda ayaa laga helaa walaalaha raadinaya fertility-ga raadinaya inay improve gareeyaan idinkana ma sha Allah tabaaraka Allah baakadkaas aad iyo aad mataqaanaa u fiican yahay inta aan ka akhriyay ma isticmaalin sababtoo ama aan raadinaynin laakiin walaalo aan ka caawinay feedback goodi aawadeed ayaa mataqaanaa aan arintaasna aan idin la soo wadaagay oo aan ayadana miiska aan idin ku soo saaray ma sha Allah tabaaraka Allah dhinaca kale oiliska walaalaha gabdhaha yaryar leh ma sha Allah tabaaraka Allah all GNC oiliska ma aha ani dukaanka waxooda inaan iska amaanaya kaliya ma aha wax macno iguma jirto anigu ma ka ganacsado dukaanka laakiin xaqiiqdii waxyaabaha laga soo sameeyay iyo sida mataqaanaa nature-ka loo soo sameeyay iyo qiimihiisa aawadeed ayaa idin la soo wadaagay qiimihiisa oo aad iyo aad u jaban ما شاء الله تبارك الله وقضبك كواد عن برودكت يدان idin la wadaagayo
qodobka labaad ee aan idinla wadaagayo arrintan maxay tahay waa wax mataqaanaa wada natural ah cuntooyinka aad taqaaneen oo laga soo bixiyey oilkii saliidii laga soo bixiyey ayaa mataqaanaa weeyaan oo leh mataqaanaa different vitamins kala duwan marka aad saliidahaas aad soo qaadataan dhowr nooc oo kala duwan iyadoo avocado ah jirto iyadoo maxaa la dhahaa noocyadaas kala duwan oo mataqaanaa dhirtaas kala duwan laga soo sameeyey marka aad soo wada qaadataan waxa aad sameynaysaa waa isku daraysaa hal dhalo usoo qaado isku dar marka isku dartid sas camal mataqaanaa gabadha yar aad timaha u marinayso ama adiga mataqaanaa aad marsanayso waxaa arkaysaa marka in marka saliidahaas isu tagooda timaha ay aad iyo aad u bixiyaan maasha allah tabaaraka allah si marka idinma dhahayo 2 week baa timaha mataqaanaa ay kugu gaari doonaan dhabarka dhexdiisa subxaan allah idinma dhahayo nothing kana be change 2 week walaalahay laakiin waxaan kuleeyahay marka aad muddo isticmaasho at least see 3 bilood ama 4 bilood 3 bilood ama 4 bilood si maxaa la dhahaa kabacdi waxaa arki doontaa timahaagii oo isbedelay ama ilmihii aad u marinaysay timihiisii oo isbedelay maasha allah tabaaraka allah oo dheeraaday oo maasha allah la fiican yeeshay ayaa arkaysaa timaheena Soomaalida ee quruxda badan maasha allah tabaaraka allah marka aad iyo aad productyadaas oo dhan intee ka helaysaa marka waxaa ka helaysaa umumuna kama oo dharanaysid ha isoo dhihina umumuna haye xageen ka helaa hadda idin sheegaya walaalahay waa idin la kaftamaya maasha allah tabaaraka allah umuna waxba ma gado ay wax aan idinka gadaayo oo ilaahay abuurtay ma jirto walaaltinimo Soomaalinimo maasha allah tabaaraka allah waxaa nafteyda la jeclahay oo aan idin la jeclahay intaas waay aniga barnaamijyadeyda iyo waxyaabaha caafimaadka ee aan mataqaanaa aan idin la wadaagayo hooyo Soomaaliyeed hor u soco that is my point laakiin wax aan idinka gadaayo oo ku dhahayo waxaasaan aniga ka gadaaya ee halkaas ka raadso don't wait about me for that wax ma gada aniga maasha allah tabaaraka allah walaalaha waxa gadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxay gadayaan Soomaaliyeed kama soo horjeedo ilaahay ha u barakeeyo maasha allah tabaaraka allah laakiin alaabtan aniga aan isticmaalo waxaan aniga isticmaalo su'aashiini ahayd waxyaabaha aad isticmaasho maamuna la wadaagi kartaa ayaan mataqaanaa idin la soo wadaagay maasha allah tabaaraka allah marka waxyaaba aan isticmaalay feedback ana idinka wada tijaabadii aniga waaye maasha allah tabaaraka allah oo ana feedback idinka wada maasha allah collagenka iyadoo borderkeeda waa isticmaalay ayadoo hadda kan waaba kasii helayba sababtoo ah aniga qof aad iyo aad busy iskaga ayaan ahay waqtigeeda uu yar yahay marka maasha allah tabaaraka allah hooyo employee shaqaale ah marka waqtigeyga maadaama uu timekeyga maadaama uu aad u iskaga yar yahay anfac maasha allah layn qabow ya walaalahay maasha allah tabaaraka allah waa layn qabow ayay noqotay ba dhag maxaa la dhahaa gaariga dhex saaro marka aad sii socotid xilliga aad xasuusato maskaxdaada ilaahay uu kusoo rido mataqaanaa kala baxa boxka gaarigaaga asxaabta drive gareyso maalin walbo ilmaha iskuulka dugsiga maasha allah tabaaraka allah meesha u socotidba wuu kula socdaa maasha allah tabaaraka allah marka si fudud oo aad u qaadan kartid waaye waxaan ku jeclaaday walaalaha haysta collagenka borderka oo mataqaanaa smoothiga or something ku darsanayo perfect idinkana mataqaanaa right track mataqaanaa arrintiina idinkana aad iyo aad mataqaanaa u fiican tahay maasha allah tabaaraka allah laakiin arrintan maxaa idin la wadaagayaa maamumunoy haara igu batay maamumunoy maxaa la dhahaa waxaas wajiga lagu cadeeyo no maasha allah tabaaraka allah actually midabka Soomaalida uu leeyahay waxa aniga aaminsanahay in idin la wadaago waaye midabka ugu qurux badan ayuu mataqaanaa ummadda Soomaalida ay leedahay maxaa u baahan tahay marka hooyo Soomaaliyeed maadaama pollutionka uu iska badan yahay daalka uu iska badan yahay caruurta ay badan tahay nimcada ay ku dhex jirto hooyo Soomaaliyeed ay badan tahay yes mar walba quruxda iyo isnaanaashka way banaan tahay maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad u fiican tahay intii awoodda ah inaad samaysid balse waxa aad sameynayso oo ugu fiican oo maamuna ay idin la wadaagayso waxay tahay maasha allah tabaaraka allah in aad isticmaasho waxyaabaha dabiiciga ah nafsadaada iyo skiinkaagaba u soo celin kara biidni illaahi baari waa walaashiin maamuna